السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Luqo TV waa sheekadani maalinlaha ahayd oo maalin walba aan soo dayn jirnay. Waqti aan waqtigan ahayn waxaa si wada jir ah u wada noolaa nin ganacsade ah, xaaskiisa iyo carruur ay dhaleen. Qoysku aad ayay noloshoodu ugu raaxaysanayeen. Waxay lahaayeen digaagad qurux badan. Maalin kasta dhali jirtay ukun, ukuntaas oo dahab ah oo ay lacag badan ka heli jireen. Laakiin ninkan ma ku qanacsanayn waxa uu maalin kasta helayay. Waxa uu rabay inuu ukumaha oo idil hal mar ah u wada helo. Waxa uu ku fikiray sida arrintaasi ay u dhici lahayd. Isla markiiba waxaa ku soo dhacday fikrad ah inuu digaagadda ama doorayda uu gowraco ama uu dilo si uu u helo ukumaha dahabka ah hal mar ah. Digaagadii ama dooradii ayuu soo qabtay, qoorta ayuuna ka jaray, jidhkeeda ayuuna dilaaciyay. Laakiin waxa uu arkay dhiig socda oo keliya. Aad ayuuna u shoogay ama u naxay, sababtoo ah hal ukun xitaa ma uusan arkin. Noloshii qoyskana waxaa soo hareeyay faqiirnimo, sababtoo ah wuxuu waayay dooradii iyo ukuntii uu maalin kasta heli jiray. Dakhligii ayaa meeshii ku go'ay. Marka xigmadda sheekadan ku jirta waxay tahay qofkii wax badan damciya dhammaan ayuu waayaa.